Okay, hadda waxaan u gudbaynaa qaybteeni kale ee ahayd sida aan PancakeSwap aan uga gadan lahaynay coin. Okay, ugu horreyn waxaad hubisaa inaad joogto qaybta loo yaqaana Binance Smart Chain haddii aad PancakeSwap rabto inaad wax ka iibiso. Okay, waxaan tegaynaa qaybtaas meeshaas yar oo geeska ayaan tegaynaa halkaa. Okay, halkaa markii aan ku dhufano hadda wuxuu inoo saaran yahay wallet. Waxaan tegaynaa qaybta ay ku qoran tahay browser. Okay, browser marka aan tagno waxaan ku qoraynaa waxa ku qoran iska daa waxaan ku qoraynaa PancakeSwap. Waxaan iska hubinaynaa website-ka PancakeSwap-ka saxda ah ayaan iska hubinaynaa pancakeswap.finance marka aan ku dhufano. Okay, hadda waxaan joognaa pancakeswap.finance. Iska hubi mar walba haddii aad rabto inaad sii hubisana waxaad ka soo tagi kartaa ama ka tagi kartaa CoinMarketCap marka aad ka sii tagto waxaad ka dooranaysaa PancakeSwap website-kooda ayaad halkaas ka soo geli kartaa kadibna waxaad ku sameynaysaa connect wallet. Mar walba waxaa muhiim ah inaad hubiso ma yahay meesha saxan. Okay, waxaan dhahaynaa connect wallet. Okay, connect wallet marka dhahno wuxuu inoo soo qoray MetaMask marka hadda wallet-kaas ayaan ku connect gareynaynaa. Okay, hadda marka waxaan ku sameynay MetaMask-geena connecting ayaa sameynay. Okay, waxaan tegaynaa trade. Waxaan ku dhufanay meesha trade ku qoran tahay. Mar walba waxaan inaa joogto ku dadaal exchange meesha ku qoran tahay. Okay, hadda wuxuu inoo saaran yahay BNB-daas ayaa inoo saaran oo qayb lacagtaas yar aan ku tijaabinayno inoogu jirto. Waa qasab inay wax kugu jirto BNB ah. Okay, BNB marka aad soo dirsato kadib meeshan ayaan imaanay waxaan rabnaa coin inaan iibsano. Okay, marka coin-kaas ka soo qaad coin meeshan aanan ku jirin inuu yahay. Hadda waxyaabahan coin qaar waa ku seerjeegaray kartaa laakiin ma soo baxayaan mostly. Tusaale waxaa laga yaabaa coin cusub inaad soo heshay. Okay, waan laabanaynaa waxaan tegaynaa CoinMarketCap. Okay, CoinMarketCap markaan tagno waxaan rabnaa inaan ku tijaabino coin. Okay, coin-kaas inuu noqdo okay Altura oo Aluu loo soo gaabiyo. Okay, Altura aan iska hubino Binance Smart Chain. Okay, waxaan u jeednaa Altura inay tahay Binance Smart Chain markii aan halkaa ku dhufano contract address-keeda aan ku laabana MetaMask-geena. Okay, wuxuu naga rabaa inaan meeshii directly aadno. Okay, directly PancakeSwap-keena ayaan kusoo laabanay. Waxaan haysanaa address ayaa inoo copy gareysan ayaan wadanaa. Okay, aan tagna qaybtii trade-ka waxaa kusoo meeshan basti ku dhahaynaa address-ki aan wadnay. Waxaa soo baxay coin-kii oo Altura ah ama Aluu. Okay, import ayaan dhahnay. I understand it. Import coin-ka wuu soo baxay marka. Okay, hadda marka waxaan rabnaa inaan coin-ki aan soo gelinay ee Altura ah inaan soo iibsano. Marka waxyaabaha muhiimka ah laga rabo inaad ogtahay marka aan soo gelin waxaan ka soo galnay trade ayaan soo galnay. Mar walba waa inuu kuu jooga exchange aana connect ku sameynay MetaMask-geena aan ku connect gareynay. Okay, BNB-da ama wixii aad haysato inay ku koreeyaan ay yihiin qaybta kore. Haddii aan u baahannahay inaan dhahno max haddaan dhahno waxay u taagan tahay wixii aan haysano dhan noogu bedel coin-kan noogu bedel ayay ka tarjumaysaa. Haddii aadan max rabinne waxaad gelinaysaa amount-iga aad rabto ayaad gelinaysaa. Okay, waxyaabahaas marka haddii aan rabno haddaan BNB rabno inaan coin-kanan gadanay oo inoo qarxay waxaan rabnaa inaan BNB ku sii bedelno. Markaas waxaan sameynaynaa BNB-da ayaan ka dhigaynaa qaybta hoose. Okay, waxaa kaloo iyadana muhiima meeshaas inaan aad mar walba default-iga aadan ku deynin waayo marar waxaa laga yaabaa uu kaa diidi karo una baahan yahay inaad ka dhigto gas fee-ga ama slippage-ka number aad inaad badiso.
matalan haddii aad ka qayb galayso IDO oo kale ama coin markaas raqiis ah dad badan ay galayaan qof walba oo badiso percentage ama maxaa la dhahaa gaaska ayaa kaa hormarayso oo speedkiisa uu ka badanaya so marka haddii aan xagga ku dhufano hadda wuxuu saaran yahay 0.5 marka mar walba aad kordhiso numberka tusaale haddaa ka dhigno 2 waxaa waaye marka waad ka xawaaro badan tahay inkastoo uu yar yahay 5 10 meelahaas inaad ka dhigto ayaa wanaagsan haddii aad ka qayb galayso waxyaabo oo IDO oo kale ah laakiin haddii si caadi tahay meeshiisa haddaa ku daysid waa okay marka hadda tusaale marka ayaan rabnaa inaan ka soo qaadano waxaan soo gadanaynaa Altura haddii aan dhahno tusaale aan kusoo gadno 0.0 ama 0.02 oo kale okay marka 0.02 dhahno intaas ayay u dhigmataa waxay ina siinaysaa 176 oo Altura ah okay aan dhahno tusaale 0.01 oo kale wuxuu ina siinayaa 88 Altura ayuu ina siinayaa okay 88daas Altura markuu ina siiyo marka hadda waxaa u baahanaa inaan dhahno swap okay swap ayaan dhahnay wuxuu inoo sheegayaa inaan 0.01 BNB aan ku iibsanayno intaas oo Altura ah okay confirm aan dhahno okay inaan marka reject dhahno ama confirm marka reject hadaa dhahdo ma ogolid waa ka laabatay confirm hadaa dhahnana waxaa waaye wuu gadmay so marka confirm ayaan dhahnay okay marka hadda meeshaas ay ku qoran tahay add allow to the metamask meeshaas waa ugu soo darsan kartaa waxaa samayn kartaa inaad qaybta aad soo qaadato adresskiisa aadna ka soo qaadato coin market cap ina adresska aan haysanay aan ku qorno oo si toos ah aan ugu dararsano waa samayn karnaa meeshaas hadda si fududna inaan dhahno add Altura to the metamask okay labada waa samayn karnaa hadda marka aan dhahno tusaale inaan Altura ku darsano metamaskigeena okay waa noogu darsamay okay aan ku laabana marka hadda waxaan haysanaa Altura coin-kooda 88 xaba ayaan soo gadanay okay aan ku laabana metamaskigeena marka ku laabano hadda waxaa ujeedaa inaan soo iibsanay marka 88 xabo oo ah Altura ah marka haddii aadan halkaa ugu soo darsan waxaan ugu soo darsan karnaa qaybtaas waxaa u baahan tahay adresska Altura inaad ka soo qaadato coin market cap-ka aana hubiyso mar walba meesha ka soo qaadayso okay hadda waxyaabahan kale si automatic ay u buuxsami doonaan okay hadda maadaama inoogu darsan yahay wuu inaga diidi doonaa marka haddaan add token dhahno wuxuuna dhahayaa hore ayuu kugu darsan yahay marka qaabkaas ayaa ugu soo darsanaysaa so marka hadda waxaan rajaynaynaa inaan baranay sida pancake swap markii la tago looga soo iibsado coin marka waxaa u baahan tahay metamask markii aad samaysatana waxaad u baahan tahay wax loo yaqaano Binance Smart Chain aan sharaxnay sida loogu soo darsado kadibna waxaa u baahan tahay inaad ku soo shubato BNB ayaa u baahan tahay inaad ku soo shubato BNB kadibna waxaa u baahan tahay inaad tagto meeshii aan sharaxnay ee aheeday browser kadibna aad ku qorto pancake swap markaas kadibna aad ku laabato coin market cap aadna ka soo qaadato adresska coinka aad rabto inaad iibsato haddaba ka taxadir coin aad iibsanayso inaad adresskiisa ka keento telegramka oo kale qofkuu soo diro kale mar walbo ha naqato meesha aad ka keenaysid meel la hubo sida coin market cap oo kale ama coin gigo soo marka taxadirka waa muhiim marka aad adresskaas soo qaadatay kadibna waxaa samaynaysaa inaad ku baasti garayso kadibna sida aan hadda soo sharaxnay step by step aad samayso marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaana rajaynaynaa in wax aad ka faa'iidid cashirkan aan ugu talagalnay sida loo isticmaalo pancake swapka ama sida metamaskiga
loogu xiro Pancake ama MetaMask Pancake iyo Uniswap. Uniswap waa la mid, wax difference inta aan soo sharaxnay uu ka duwan yahay ma jiro. Markii aad Uniswap galayso waxaa u baahan tahay in aad Ethereum geyso, qaybta Ethereum inaad geyso, aadna website-ka browser ka gasho, aadna ku qorto Uniswap. Uniswap markaa ku qortana inaad meeshaas kusoo shubato Ethereum coin-ka aad rabtana aad address-kiisa soo qaadato, step-kii aan hore usoo marnayna aad marto. marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.